kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena inuu ku eegi doono waxa qayb ka ah jabhadda Faano oo markale soo bandhigtay cudud ciidan shacabkii ama xaradu way diyaar garoobeen dagaal ayaa markan loo wajahayaa dhanka dhulka ay haystaan ciidamada militariga Abiy ka marqaata xaaladda guud ee dhulka ama xarada jabhadda Faano oo markale taageeraan la filan heshay cudud ciidan hub iyo sanad military ayay markale gacanta ku dhigeen tolo xaalka Itoobiya halkii ay u socdaa Itoobiya waa ay foolanaysaa tolo maxay dhali doontaa ay sheekadu maraysaa qodobadaas qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa saaxiibayaal soo dhawaada ciidamada hubaysan ee jabhadda u dagaalanta ama xarada ee Faano taageerto ayaa taageero weyn heshay waxaana shacabka ama xarada iyo ciidamada Faano markii ugu horeysay ee isku fikir ka noqdeen in si wada jir loo wajaho dagaalka ka dhanka ah maamulka Abiy iyo ciidamadiis marka ay soo galaan magaalooyinka shacabka ama xarada oo aan gambasho lahayn ayaa loo soo dhaweynayaa si aanu cabsi lahayn ayaa loo soo dhaweynayaa ciidamadan hubaysan ee jabhadda Faano ayaa dagaal adag kula jirta taliska Addis Ababa sida ay xabashadu sheegtay waxa qoriga u qaaday inay qabsatay magaalada Itoobiya waa sidii hadalka ku celceliyeen wararku waxay sheegayaan in dagaalo waajihooyin badan ay ka socdaan ay u dhaxayaan ciidamada federaalka Itoobiya iyo ciidamada jabhadda Faano fariiqama qodna xaaladda Itoobiya wali sheekadu ma dhawa waxaa la soo warinayaa in qorshayaal badan oo kala duwan ay wajahayaan dhinacyada taasi oo saameyn togan ku yeelanaysa qorshaha Abiy uu ku doonayo in Amxaaro kaga takhaluso in Amxaaro laga adkaado waa in ay iyadu isdhiibtaa laakiin suuragal uma noqonaysa in Abiy uu ku marmarsiyoodo qaabka uu wajahayo dagaalka maamulka uu la geli karo ama maamulka Amxaarada uu la geli karo jabhadda Faano cidna uma aysan aba yeelin qorsheedu waxa uu yahay la dagaalanka iyo baabiinta cid walba oo iyadu soo wajahdo waana waxa kaliya hadda la doonayo dhammaan siyaasiyiintu waa isku fikir ka yihiin in si wada jir ay isku difaacaan Amxaaro Faanana ay dagaal adag gasho hubkana la siiyo shacabkuna ay sacabaha u tumaan oo ay taageeraan garab istaagaan isla markaana ay u muujiyaan in ay taageersan yihiin jabhaddu waxay taageero ka helaysaa dad badan oo iyo dalal shisheeye taasi oo suuragal ka dhigaysa in mar kale ay guuleystaan haddii jabhaddu ay dagaalkan ku guuleysato waxay suuragal u noqon karto mar kale in ay bilowdo qorshayaal ay kaga saaraysa maamulka Abiy ciidamadiisa dhulka ballaaran ay haystaan waa mid kale oo meesha ka saaraysa awoodda Abiy waa uu ku siran yahay mana haysto qorshe kan ka duwan oo uu kaga badbaadinayo ama uu ku badbaadinayo xaaladda qaybo badan oo ka mid ah dhulkan Itoobiya ku yaala taasina waxay marqaati ka tahay waxa uu qorsheenayo Abiy in mar kale tallaabooyin dheeraad ah uu qaado haddii tallaabooyinkaas isbedel weyn uu ku yimaado qorshuhuna uu noqdo mid ka duwan sidii hore waxaa tallaabooyinkaasi ay noqon karaan kuwa aad loo sugo oo Abiy uu fashil dhaxda ka istaagi karo jabhaddu waxay heshay hub iyo sanad military waxaana qorsheedu yahay inay bilowdo in mar kale ay dhulkan Waldaaya Disi iyo sidoo kale Kombolja iyo dhul ballaaran oo ay Amxaaradu laga xoga ka hor ay dib u soo ceshato iyadoo xitaa ku wajahan inay qabsato Bahardar waa sida ay Amxaaradu sheegayso haddii ay u soo ragasho qorshayaashu waa ay ka duwan yihiin sidii hore waa ay ka duwan yihiin sida ay wax u rabaan dhinacyada waana ay ka duwan yihiin sida qorshe walba uu ahaa kol hore maadaama ciidamada militarigu ay haysteen awood ballaaran weerar gaadma ah oo hal mar ah ayay ciidamada militariga Itoobiya kol hore ku qaadeen gobolka Amxaaradu iyo sidoo kale Tigreegu ma aha kuwa isku awooda ama isku babacdhigi karo maadaama ay dhinacyadu u muuqdaan kuwa qorsheynaya in isbedeladoodu ay la mid ka dhigaan sida ay wax u rabaan taasina waxay meesha ka saaraysaa wax walba oo la xiriira xaaladda Itoobiya inay isku bedelaan si kadis ah Tigreegu markii hore ama 2021 marka la weeraray waxay qaateen go'aanka mudambeysa waxay u fikireen sidii ay isaga difaaci lahaayeen Abiy waxay diyaariyeen qorshayaal iyagoo xitaa guud ahaan dhulkoodii la qabsaday magaaladii caasimadda ahayd ee Maqalla ayaa la qabsaday dhulkii ballaarnaa ee Tigray ayaa la qabsaday qowmiyadaha canfarta ama xarada iyo guud ahaan dowladda Itoobiya ayaa soo weeraray Eritrea dhinaca ayay ka soo wajahday dagaalka oo ay godoomisay waxay ku qasabtay Tigraygii dhammaantood in banaanka ay kaga baxaan magaalada oo ay duurka galaan 6 bilood oo ay duurka ku sugnaayeen tababar ay qaateen hub aruursi ay sameeyeen awoodoodu ay mideeyeen waxa ay dib hal mar u soo rogaal celiyeen oo ay soo qaadeen weerar xoogan isla sanadkii 2021 markaasi oo qasabtay ama sababtay in ciidamadii Itoobiya laga saaro guud ahaan gobolka Tigreega
ugu horreyn magaalada caasimadda ee Maqale ayaa awood looga saaray waana laga adkaaday ciidamadii Abiy oo garbaha ku sita jabhadaha hubeysan ee ka dagaalama dhulka Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta iyo Eritrea dhulkeedii ayaa loo celiyay jabhadihii hubeysnaa ee Canfar iyo Amxaaro goboladooda ayaa lagu celiyay militarigii waa la soo jebiyey Tigreeguna waxay la soo bixeen awood iyo cudud ciidan intaas kuma aysan simin oo marka ay gobolka xuleeyeen waxay sheegeen inay qabsanayaan dhulka Canfarta iyo Amxaarada maadaama iyagu dagaalku ay hogaaminayeen durbadiiba dagaalo ayay qaadeen dhul ka mid ah Canfarta ayay qabsadeen dhul ka mid ah dhulkii Amxaarada ugu badnaa ayay qaateen oo deegaanada hadda lagu dagaalamayo ayaa gacantooda gala Tigreeg waxa ay ku dhawaadeen caasimadda Itoobiya Addis Ababa in ka yar 120 kiiloomitir ayay u jireen laakiin taasi durbadiiba waxaa hakiyay oo dib u celiyay awood uu la soo baxay Abiy taageero uu ka helay dalal shisheeye oo ugu horreysay Turkiga diyaaradaha Bayraktar TB2 ayaa dagaalka ka qayb qaatay waxaana ay baabi'iyeen oo ay duqeymo ku baabi'iyeen dhammaan saanadii military ee ay Tigreeg ku dagaalamayeen ciidamadii Tigreeg ayaa noqday hal la dilay mid dhaawacmay iyo mid buubay iyo mid dagaalka isaga baxay kadib waxa ay dib u noqdeen dhammaan ciidamadii Tigreeg waxa loo celiyay gobolkii Amxaarada kadib waa laga sii saaray gobolkii Tigreeg Canfar gobolkeeda waa laga saaray oo waxa la isugu geeyay gobolka xitaa waxay gaartay in looga tallaabo xuduudda Tigreeg uu la wadaago gobolka Amxaarada iyo Canfarta markaas kadib maalmo iyo sidoo kale waqti dheer oo ay soo fadhiyeen ciidamada ugu dambeyn heshiis wadajir ayay gaareen Tigreeg iyo Amxaarada iyo sidoo kale maamulka Abiy inkastoo dhacdooyinkaas laga diiwaan geliyay gobolka Tigreeg Amxaaradu ma leh awood kale oo ay sidan ku samayso ama ay isaga difaacdo Abiy maadaama iyadu markii hore dhulkeeda la qabsaday oo aysan wax tallaabo qaadin tan waxay cashir u noqotay weerarka lagu qaaday Tigreeg weeyaane maamulka Amxaarada mana qaadan cashiradaas oo diyaargarow ma aysan gelin maadaama Abiy uu si bareer ah ula dagaalamo qowmiyadaha Itoobiya dagaalo ayaa lagu qaaday gobolka Amxaarada waa lagu hoobtay dhul ballaaran ayaa laga qabsaday jabhadda Faano waana la racdaystay waana la buriyay gebi ahaanba waa laga takhalusay waxaana ay ku hareen daafaha magaalada iyo sidoo kale hawdka buuraha gobolka Amxaarada ee buuraleyda taasina waxay sababtay in mar kale ay wajahaan caqabado kale oo aanu soo gambasho lahayn taasina waxa ay meesha ka saartay in awoodii Faano la waayo Abiy waxa uu ku farxay in ciidamadiisu ay gaareen guulo taariikhi ah oo waaweyn taasina waxay u suura gelisay mar kale in uu isku dayo in cududiisa military uu isticmaalo awood uu ku maqooniyo gobolka Amxaarada isla markaana uu u isticmaalo wax walba uu haysto inuu gobolkan ku bixiyo awoodiisa ayuu isugu geeyay waana ay u suura gashay in inta badan gobolka Amxaarada uu qabsado jabhadda hubeysan ee Faano ayaa markii inta dagaalka uusan bilaaban 7 bilood ka hor ka dagaalamay duleedka magaalada caasimadda ee Bahardar halkaas oo ay cabsi ka jirtay magaalada madaxweynihii dowlad deegaanka iyo dhammaan saraakiishii golihii wasiirada golaha deegaanka ayaa gabi ahaanba isaga cararay magaalada Bahardar oo caasimad u ahayd gobolka Amxaarada iyaga oo deegaan iyo deganaansho u doonta Addis Ababa laakiin ciidamada militariga ayaa suura geliyay in aad loo fogeeyo jabhadda laga qabsado dhulkii ay joogeen la dhaqaajiyo lana geeyo ilaa buuraha gobolka Amxaarada ay leeyihiin taasina Abiy niyad-jab kuma aysan noqon oo waxa uu ka helay dhiirigelin weyn si uu mar kale u sii laba jibaaro awoodiisa gudaha saxaabiyal halkaas aynu ku soo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo